qalabkan oo ah mid casri ah oo loogu talagalay wax soo saarka shinnida ayaa isugu jira qaybaha gaagurta casriga ah, dharka loo xidho shinnida iyo sidoo kale qalabka lagu miiro malabka iyo qaybo kale oo waxtar u leh wax soo saarka shinnida. wuxuuna xafiisku sameeyay ka hor intaan qalabkan lagu wareejin iskaashatooyinka tababar la xidhiidha habka loo isticmaalo qalabkani si ay si fudud uga faa'iideystaan. wasiir ku-xigeenka xafiiska horumarinta xoolo-dhaqatada dowladda deegaanka Soomaaliya Dr. Maxamed Gacal ayaa sheegay in xafiisku qalabkani ugu talagalay in la gaarsiiyo iskaashatooyinka wax soo saarka shinnida si ay uga faa'iideystaan qalabkani isla markaana u tayeeyaan wax soo saarkooda. سوى دكتورنا هي حفيزك hormarinta xoolo dhaqatada wuxuu ahmiyada saarayaa ka faa'iideysiga kor u qaadida ka faa'iideysiga xoolaha nool saas la mid ah kheyraadka kale ee dahan dalkeena uu hodan ku yahay sida shinnida ka faa'iideysiga shinnidana waxay ka mid tahay waxyaabo xafiiska aad ugu shaqeeyo xoog u saaro salaajligeed xafiisku waxa uu soo iibiyay qalab kala gedisan ee shinnida lagu dhaqdo malabka lagu soo saaro oo looga talagalay shirkada oo xafiiska hore u tababaray ilaa 50 iskaashato oo ku kala nool 12 gobol ee deegaankeena shirkadahaas ama iskaashatooyinkaas oo xafiiska hore u soo xulay oo u qaatay model ahaan tababaradii dhaqashada shinnida hore loo siiyay ayaa waxa hadda xafiisku u soo iibiyay oo diyaariyay qalabkii ay kaga faa'iideysan lahaayeen wax soo saarka shinnida guud ahaan xafiisku wuxuu kaga dan leeyahay programkan uu kor u qaadayo wax soo saarka malabka ama wax soo saarka shinnida in bulshadeenu ay ka hesho dhaqaalo ay ka hesho maadaama aan ogsoonahay malabku inuu yahay waxyaabaha ugu qaalisan dadku daawo ahaan u isticmaalaan waa fursad fiican oo dadkeena ay kaga faa'iideysan karaan kheyraadkooda qayb ka mid ah insha Allah waxaan rajaynaynaa inay wax weyn bulshadaasi kala gedisan shirkadahaasi kala duwan dhammaan 12 gobolka ku nool in ay noloshooda wax badan ka bedeli doonto. Cabdirasaaq Maxamed Nuur kusimaha agaasinka waaxda wax soo saarka xoolaha ayaa sheegay in qalabkan lagu wareejiyo iskaashatooyinka isugu jiro qaybo badan oo casri ah oo u fududeynaya iskaashatooyinku inay kor u qaadaan wax soo saarka shinnida. maanta waxaan halkan joognaa inaan iskaashatooyin ka mid ah iskaashatooyinka deegaanka gaar ahaan kuwa ku hawlan wax soo saarka maanta malabka ee dhaqda shinnida inaan ku wareejino ma garanaysaa waxa weeyaan qalabka shinnida oo isugu jira gaagurta casri ahayd kii lagu qiijinayay ma garanaysaa waxa weeyaan kii malabka iyo lagu kala miirayay waxa weeyaan gufka ku haray iyo waxyaabaha kale maartay loo isticmaalayay shinnida sida dharkii oo kale iskaashatooyinkan waxay ka mid yihiin iskaashatooyinka sanad walba la asaaso ee la qalabeeyo ee ka jira deegaankeena isla markaana waxa weeyaan sanadaha horena waxa weeyaan sanad walba waxa weeyaan miisaanadana waxa weeyaan waa lagu daraa annagoo waxa weeyaan annaga mashruucyada kale maartay iskaashanayna soo saleeg waxa weeyaan waan asaasnaa waan siinaa qalabka eegan waxa weeyaan wixii ka dambeeya waxa weeyaan sanad walba waxa weeyaan qorshaha noocan waxa weeyaan xafiisku uu sameeyaa waxaan rajaynayaa haddii ay in iskaashatooyinkan ay noqdaan kuwii maartay waxa weeyaan qalabkan la siiyay ka faa'iideysta ee aan dayicin lama ogola ma garanaysaa iskaashatooyinku markay qalabka qaataan guryaha iskaga xareystaan ama waxa weeyaan ayna meelo ku haboon ayna dhigin sidii maartay tababaradii aan ku siinay waa inay maartay waxa weeyaan ay qalabkan u isticmaalaan waxaan rajaynayaa haddii ay waxa weeyaan inay maxsuul maartay natiijo malabkii hore ay soo saari jireen mid ka badan maadaama qalab casri ay isticmaalayaan inay soo saaraan wixii inta ka dambeeya. iskaashatooyinka lagu wareejiyay qalabkani ayaa sheegay in agabkani uu faa'iido u leeyahay badqabka shinnida iyo sidoo kale wax soo saarkaba. waan ku faraxsanahay taageerada ay dawladdu noo keentay iyo maaragtay horumarkan oo dadku iyo dawladduba higsanayaan. marka adigu intee la muddo ku dhaqaysaa shinnida marka anagu waa nagu bilow hadda waa sanadkii 3aad baan ku jiraa marka 3 sano tababarkeeda iyo aqoonteeda iyo qalab ahaan iyo waxaad moodaan kor u socono meel fiican baan hadda maraynaa intii hadda koreysay waxaan isticmaalaynay noocan anagu gacanta ku sameynay oo maaragtay aan natiijo badan lahayn laakiin qaabkan tan cusub ee casriga markii naloo keenay waxaan aragnay inay ka natiijo badan tahay oo ka wax soo saar badan tahay oo xataa xagga quality-ga awal hore markii aad dhasha soo saarto dhashu way dhimanaysaa ama dadku baa cunaya ama way dhimanaysaa laakiin tan waxa sameynaysaa qaybtaada aragtay inay dhal leedahay inay dhali ku jirto meel kale baad u bedelaysaa tii malab ku jirtana waad la baxaysaa marka waxba kama khasaarayaan imka 3 sano ku jirnay shinni noo timaado mooyaane tii noo dhalatay ma qaban jirin waayo de waxba ma kicin jirin